halka document baan caawa idinku hayaa anu meel Soomaali wali lagu soo bandhigay ma hayo documentiga magaciisa waxa la yiraahdaa Study of Centralized Political Structures for Somalia Menu of Options waxa la dhamaystiray 1995 waa documentigii ugu horeeyay ee la soo saaray ee Soomaaliya dawlad xoog loo ishaysataa inay dib uga dhalan lagu soo taliyay documentiga waxa maal galiyay EU waxana loo xil saaray London School of Economics 7 professor oo ka tirsan oo ninka ugu caansan ee la yaqaan Soomaaliya uu taqaano yahay Professor Ian Lewis natiijadii ay ka soo saareen way asal kana waxa way farta yar ugu hooseysa ninkii akhriya wuxuu ku arki doonaa waxa ku qoran the term Somalia refers to what was formerly known to Somali Republic wixii Soomaaliya dawladda Soomaaliya la oran jiray baan hadda uga hadlaynaa Soomaaliya halka waxa arkaysaa in laga saaray documentiga markii la diyaarinayay wax Soomaali dawladnimo Soomaaliyaba inay meesha ka baxdo documentigaas way asalkiisuna meesha problemka maanta Soomaaliya haysato wana haddaan ilaa detailkiisa hoostiisa si akhrido ilaa xad waxa laga gaaray leeyahay caasimada waa in Muqdisho laga saara laga bedela buugaasi ku qoran tahay halkaas ay ku qoran tahay waxaad ogtihiin marka isdilka iyo dhibaatada maanta Soomaaliya ka taagani Soomaaliya waligeed waa jiri jirtay Soomaaliya waagi hore qofka Soomaaliga ah wuxuu ku dhaaban jiray Soomaalinimo qarannimo lagu dhaaban jiray hadda magaalada aan joogno intaas oo xaflada laga qabtaa waxaad arkaysaa maanta waxa loo dabaaldegaya Puntland bari waxa loo dabaaldegaya Somaliland galmudug baa loo dabaaldegaya Jubbaland war Soomaaliya xagee ka baxday Soomaaliya xagee ka baxday dawladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliya xagee ka baxday buugaa yar fikrada ku qoran baa lagu baabi'iyay waxaan hadda gaalkacyo dhibteeda badatay laakiin waxa lagu ogaataa in gaalkacyo ugu horeeyay dawlad goboleedka laga dhisay Baydhabo markii la dhisay talaabadii ugu horeysay qaad muxuu noqday ciidamay soo kaxaysay calana way soo qaaday jaziira ka tagtay jaziira oo xamar duleedkeega ka tagtay maamulkii gobolka Banaadirna ciidamo u diray isku dhaci ugu horeeyay halkaas uga dhacay meel walbana sidaas uga dhici doona Soomaalidu himilay lahayd xuduud bay eegi jirto dibadday eegi jirtay dalalkii ka maqnaabay ku sii jeedo xuduudda dibadday eegi jirtay laakiin hadda waa maxay waxay u soo jeesatay xuduudaha dhexdooda Soomaaliya hooy bay u ahayd qof kasta oo Soomaaliya sheegto ninka Cali Sabiix ka yimaado Djibouti agteeda iyo ka Siyoolo ka yimaado iyo ka Hawaas ka yimaado qofka Soomaaliga ay xamarweyne ku dhashay xuquuqaha wuxuu kaliyo ka xigay waxa ay guriga isagu leeyahay iyo beerta isagu leeyahay isku xuquuq bay ahayd laakiin maanta maxaynu aragnaa qof Soomaaliya dad Soomaaliya laga tarxiilayo gobol Soomaaliya la leeyahay uma agdalanin meel kala dadka laga soo tarxiilayo waxaan u maleeyaa taas inay cad tahay meesha meel ka xun baynu gaari doonaa federalismku wuxuu ina geeliyay ummadii ciriiri xataa dhaqaalihii iyo baabi'iyay waayo xabada mooska ama xabada cambaha ee jilib laga keeno marka ay afkooda lagu soo cashuuro ee xamar lagu cashuuro ee jawhar lagu cashuuro ee cadaada lagu cashuuro gaalkacyo lagu cashuuro qiimahay ku tagaysaa Boosaaso alaabta Boosaaso laga keeno ilaa qolad ka soo dawlad sheegatay waa inay cashuur rees garaysaa waa inay cashuurtaa waa dhaqaalaha iyo ummadii Soomaalida halkaas la geliyay meel kasta waxa laga dhisay dawlad iyo baarlamaan iyo wasiiro kharashka ku baxaya dawlad goboleed kasto ay maamulkeega iyo madaxdeeda iyo baarlamaankeega lagu bixinayo intaas oo iskuul Soomaalida biyo la'aan baa laysay ceelal bay u qodi lahayd wax alla waxay qabanayaan ma jirto wax alla wax maanta ay u hayaan baarlamaanka dawlad goboleedku wax alla wuxuu hayaa ma jirto meesha markii ugu horeysay magac federaal iyo soo galaa waxay ahayd waagii gumaysiga wadanka haystay gobolada Soomaaliya kamida uu Talyaanigu wuxuu ku qanciyay isku day inuu ku qanciyo inay Soomaalida kale ka duwan yihiin sida daraaddeed ay xuquuq u helaan Soomaaliya markay dawlad qaadato waa inay ku mudacaan federaal in la sameeyo falxamdulillah dadkii Soomaalida markaa hogaaminayay gaashaanka u daruureen halka kama soo kicin kii labaad ee ku soo xigay ee Soomaalida lagu baabi'inayay waa kan marka waxaan u maleynayaa bari waxa ka xigta dawladii Soomaaliya jabhada lagu burburiyo cadawba soo hogaamiyay haddana magacii Soomaalinimo
dawlad goboleedya bedelay barina waxa ku xigto ogaada dawlad goboleedku wadankay rabtay ku beeri kartaa habba ciisanina arrinta waxaan xasuustaa dawladda Jubbaland markii la dhisay dawlad goboleedka Jubbaland madaxdii u tartamaysay nin kamid ah Sheekh Shakuul waa arrintaasi meel walba ku taala wuxuu ku khudbeeyay Kenya waa stakeholder bay ku tahay arrimaha Soomaaliya yaani qayb bay ku leedahay waa in laga talageliyaa Faarax Macallin oo ahaa afayeenka baarlamaanka Kenya ku xigeenkiisu ninka darajada jooga siyaasad dawladeed waxay ku hadli karo muxuu yiri maanta intii ka dambayso afmado iyo badhaadhiye Kismaayo Muqdisho laga xukumi maayo haddana dawladda Kenya raali ka ahayn halka kuma hadleen maxay la waa gudoomiye ku xigeenkii baarlamaanka Kenya afayeen ku xigeenkii buu ahaa anigu waxaan leeyahay bari waxay noogu xigto dawlad goboleed kastaba kililka laxaad iyo sharaad waxay noqotaba kuwa ha ku biiraan waxaan ku soo gabagabaynaya arrin waxooga aad ii damaqday magaalada Boorama waxaan ka soo raacay basaska caasiyada yareerka 2013 Hargeysa oo soo socdaan shirkan fuulay yarkiiba wuxuu igu nagu shiday heesa xabashiya afxmaari markaas aan adeer man daga dabis intuu igu soo jeesto adeer miyaanad ogeyn kililka lixaad inaan ka midnahay maxaad ku hadlaysaa inaan kililka lixaad ka midnahay miyaanad ogeyn wiilka yarka ah darawalka aan aqoonta lahayni Soomaalidu waxa taa dhariga maxaa ka keenay karka kuleelka wuxuu arkay buu hadalka u yiri anigu waxaan leeyahay Soomaalidu ha istaba qabato inta goor tahay ha la istaba qabto qarannimo sidii loo soo celin lahaa ha lagu dadaalo taasna waxa lagu heli karaa in Ilaahay laga cabsado وحدة الصومالية laga shaqeeyo